waxay tiri maxaa kaa qaldan yaa walaasha arooskeeda wax yaraa ka dhiman oo bilooyin ah sidee u dhehaysaa lacagtii aa walaashay intaas usoo aroorinaya aa gabadheeda ku qalaa. waxay tiri dhageysay dhahday gabadhaada ilaahay wuxuu u qoray mareysaa, laakiin dhaqaatiirtu waxay noo sheegeen in ilaa 6 sano la qali karo, yacni qaliinka 6 sano hadduu dhaafo yacni isha eber noqonayso. 6 sano inta ka horeyso waa aruuri kartaa, 2 sano aa ku aruuri kartaa lacagta. walaashaa waxay dhahday ha dayicin, adigaa shala kafaalo qaaday aabaheedii hooyadii markay dhinteen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتكم حرنا مصونة وين سلام ومركلة يموقع العصب أما قصة عصب. أصحابتي هورن اللي جوكتو حايدن ليها من البوء وعالم كجوكتان برواقع يبش وعراء إن شاء الله. أصحابتي عصب وحاليا هاي سودو هذا كعم فروق سودو هذا جنك وجنكينا وراء أدينا هدي تامر كوغورس وجنكي وكسو قارو ميشي كذو نهورت هذا تكنوسي gacanta yaa fududeeya insha Allah. asxaabe like share comment isku soo daya wax walbo oo wanaagsanna aan isku dhiirigelino aan isku soo qorno insha Allah. maanta waxaan wadaa qiso aad u macaan badan oo xiiso leh ma sha Allah. sida hore in kuu sheegay laba xaas oo midna wanaagsan tahay midna ay xun tahay idin soo wada hadhay. marka xaaska wanaagsaneed cawada ii suurta gashay hal tisxiyo waxaa joogo boodboodayo ayaan waxay u bixisay walaasha ayaan gobdoon tisxidii cambaxa dhirrib markaa muuqaalka dubtid loo bilaabana marka horeys mabal arkaayo. marka qisadeenan waa qiso aad iyo aad u macaan insha Allah. waa isla arki doonaa gabadha ay qisada ku socoto magaceeda qisada laguma xusin, laakiin si qisada nuxur dhadhan macaan ay noogu yeelato waxaa u bixineynaa indha deeq. okay indha deeq oo bixiyay gabadhan waa qiso aad iyo aad u macaan. marka walaal tareenkay ka tagin ila soo raac inuu buuxsama ka baqin adiga ka dhiman go. qisadeena aan ku bilaawno. wiilkan waa wiil aad iyo aad u wanaagsan oo saalix ah, yacni dhanka diinta akhlaaqda ma sha Allah ku wuxuu guursaday gabar dhan walbo yacni markii la fiiriyo ka dhameystiran diiniyan akhlaaqiyan deganaan edebsanaan xaas la guursado oo raaliyo oo ninkeeda yacni ka dambeyso xaas wanaagsan dhan walbo yacni gabar ka dhameystiran waaye. ilaahay wuxuu kala siiyey gabar yar. waxaa dhacday marka gabadhooda yar in labadeeda indhood hal mid oo ka mid ah yacni la yiraahday waxay u baahan tahay qaliin oo aynan isha kale la mid ahayn. waxaa dhacday marka in uu aabihii bilaabo shaqadii uu qabanayay ama lacagta mushaarka inuu qayb gabadhiisa meel uga dhigo. waxaa kaloo jirtay walaashiis yar oo hooyadiis aabihiis ay dhaleen in uu asaga kafaalo qaaday markii aabihiis iyo hooyadiis ay dhinteen 3 sano ka hor. wuxuu u aruuri jiray ama u aruuriyay walaashiis lacagta markii la soo doonto ama arooskeeda uu dhacayo oo uga qayb qaadan lahaay. carabta waxay yaqaanaan in maxaa la yiraahdaa gabadha markii la aroosayo dhanka familkeeda ee ayagana alaabo badan soo gadaan si gabadha ay u garab istaagaan oo waxaas looga baahan yahay oo u qabto ayuu marka lacag u aruuri jiray. waxaa soo baxday gabadhiisa yar qaliinkeeda. marka wuxuu bilaabay inuu xaaskiisa la tashto oo ku yiraahdo lacagta walaashii u aruurinay waxaa rabaa in gabadheeda qaliin ku galiyo. xaaskiisi waxay tiri maxaa kaa qaldan yaa walaasha arooskeeda wax yaraa ka dhiman oo bilooyin ah sidee u dhehaysaa lacagtii walaashay intaas usoo aroorinay aa gabadheeda ku qalaa. waxay tiri dhageysay dhahday gabadhaada ilaahay wuxuu u qoray mareysaa, laakiin dhaqaatiirtu waxay noo sheegeen in ilaa 6 sano la qali karo, yacni qaliinka 6 sano hadduu dhaafo yacni isha eber noqonayso. 6 sano inta ka horeyso waa aruuri kartaa, 2 sano aa ku aruuri kartaa lacagta.
walaashaa waxay dhahday ha dayicin, adigaa shala kafaalo qaaday, aabaheedii hooyadii markay dhinteen garabkeeda ka muuqo oo ha noqonin qof mas-uuliyad uu qaaday oo meel cidlaa uga tago. Qofka marka xadiiska nabiga soo xasuusiso oo ah yacni qofkii mas-uuliyadda uu qaado dayaca inuu yacni qof fiican ahayn. Bis wuu ku qancay hadalka xaaskiisa, wuxuu bilaabay marka in lacagtii oo u aruuriyay gabadhiisa yareed iyo midii walaashii awal oo meel u dhigi jiray in oo labadoodiba iskugu daro walaashiis ayaa lasoo doontay. Arooska walaashiis ayuu waxaa ku dhahay si qurux badan u garab istaagay, wax alaali wixii uga baahneed uu garabkeeda ka muuqday. Wuxuu arkay walaashiis oo aad u faraxsan, asagana aad ayuu ula farxay. waxaa dhacday marka asbuuc kadib, subxaanallah ilaahay quwadiisa. Asbuuc kadib waxaa dhacday in meeshii uu ka shaqaynayay mudiirka ama maamulihii shaqada uu ku yiraahday waxaa lagu bedelay meesha uu ka shaqaynayay meel aad uga fog, waxaadna qaadan doontaa oo faj'a ama kadis looga dhigay lacagtii aad qaadan jirtay lacag ka yar. Wiilkii xaaskiisa markuu sheegay way ku qosashay, waxay dhahday dhegeyso, waxay dhahday ma og tahay wixii gabadha walaashaa ay cuni jirtay anaka cuneynaa, dhibna ma lahan dhahday, ama waa iska caadi in mushaarka oo kaa yaraado. Walaashaa wixii inta ku cuni jirtay ninkeeda gurigeeda ka cunay, annagana wixii shalay walaashaa cuni jirtay cuneynaa. oo dhow la cadeeyay asagana sidii yacni wuu ku qancay hadalka xaaskiisa. Mar walbo oo dhib soo gaaro waxay ahayd mid ninkeeda garab gaashaan yacni dhanka wanaagga tusisa, yacni ma ahayn xaas markuu dhibtoodaba lasii qaada oo sii holcisa. Xaaska wanaagsan waxyaabaha lagu garto. Marka wuu ku qancay, ilaa iska tala saartay, shaqadiisu iska watay. meeshii shaqada cusub markuu shaqadii cusub hadalka markuu ugu dhagdhagaa waay shaqadii cusub booskii loogu bedelay markuu aaday ayuu wuxuu u tagay dhakhtarkii. Subxaanallah, alle ilaahay awoodiisa weynaa. Gabadhii yare dhakhtarkii markuu u geeyay waxaa la yiri gabadhaada indhaheeda maasha Allah wax ay qabaan ma lahan, labadii indhoba lama kala yaqaano. Farxad uu la soo xigaaray asaga iyo xaaskiisa, ilaahay u mahadnaqeen, salaatu shukriga tukadeen. waxaa ku dhahay wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yacni noo gartay ama gabadheena noogu caafiyey sida aan u wanaajinay walaasheeni oo u garab istaagnay. iyo xaaskeydina mar walbeeta ahayd in mid kheyrka igu hanuuniso oo walaashay inaan garab istaago itusisa. halkaas ayay qisadeena ku dhamaatay. waa qiso aad iyo aad u macaan, waa qiso gabar walba in ay ku dayato ay tahay. qisadan waxaa ka baranaynaa waxyaabo aad u badan. waxaa jiraan gabdho aan la tusi karin gabdhaha dumaashiyaashooda ah, gabdho aanba arki karin familka ninkooda. waxaa insoo wadaa qiso ayadana oo qisooyin sodohyaal, midna gabadha ay xumeyneyso, gabadhiyo jecel wanaajineyso, wax walba u sameyneyso, laakiin sidee gabadha u xumeysay ilaahay ayaa caaqire intaa la gaarin sodohdii adduunka uga jaraayo. iyo ayadana sodoh kale oo la xumeynayo oo gabadha wiilkeeda qaba ay xumeyneyso, si xun ay ula dhaqmeyso, ayadana inta caaqire la gaarin adduunka looga jaraayo. booskii shalay ee sodohda dhigtane ayadii ay kusoo dhaceyso. waa laba qiso oo midna xanuunkeeda mid walba wadato, laakiin midna ay ka hadleyso sodohda xun, midna sodohda wanaagsan. marka gabdho badan oo sodohyaashooda aad u neceb iyo dumaashiyaashooda ay jiraan. gabadhan waxay wanaajisay dumaashideeda ayadoo u noqotay booska hooyo u istaagtay, booska walaal u istaagtay. walaalkeedii la dhashay wuxuu ka fekeray gabadhiisa yaraa, laakiin xaaskan wanaagsan waxay u horseeday in
yacni badbaadiso gabadhan yartaa mustaqbalkeeda si arooskeeda iyo farxadeeda looga qayb qaato. Marka abaayo dumaashida sir aan kuu sheegaya jirto. Dumaashida mar walbo ka dhigo saaxiibkaaga ama waxaa ka dhigataa qof kuu dhow. Wax badan haddaad dumaashida cadow ka dhigatid, ninkaaga walaashiis ayuu mar walba la jiraa ama ma kala dhamaadaan dad walaalo ah. Marka dumaashida weligaa cadow ha ka dhiganin si wax walba kuugu hagaagaan. Haddaad dumaashida col ama cadow ee kuu noqoto iyo sodohda iyo familka ninkaaga mar walba ee cadaawad in ka dhexeyso, gurigaaga dhismihiisa mar walba daciif waaye. Wuxuu ku taagnaado waa wax yar. Marka gabadhan oo kaleeto insha Allah Ilaahay naga wada dhigo aan khayrka ku wada dadaalno. insha Allah qisooyinkaas kalena waa noo soo wadaa. Idinkana like-ta, share-ta, commentiga aan isku caawino. maxaa la yiraahdaa maxaa idin sheegahay habeena cawdi soo jeedaa. insha Allah bariyaa jimco waaye. insha Allah la isku soo duceeyo. yaa inta xanuunsan inta jiraan insha Allah Ilaahay caafimaad ha siiyo. dad badan xanuunsan marka Ilaahay awlaada dadka ka xanuunsan Ilaahu caafiyo. dadka ayaga xanuunsan Allahu caafiyo. qof walba walaalkaayo xanuunsan haddii aad caawi kartid caawi. maxaa yeelay naf haddaa badbaadisid yaa waxay la mid tahay adigoo dadka dhan nooleeyay. marka insha Allah khayrka isku dardaarano, xumaantana aan ka tagno insha Allah. intaa ku kulmi doono muuqaalka xigo ama qisadii xigto. waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.